السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Soomaaliya soo dhawaada meel walba aad dunida ka joogtaan. Magacaygu Cabduqaadir waxaan rabaa inaan idinka daba geeyo dagaal ka dhacay galabta deegaamo hoos yimaada degmada Halgan ee gobolka Hiiraan. Dagaaladaas oo u dhaxeeya kooxda qawaariista iyo sidoo kale ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo macawisley oo iskaashanaya. Dagaalkaasi galabta 4 saac ama sidan Soomaalida aan u xisaabina 4 galabnimo ama 10 saac oo galabta ah dagaalkii bilowday caawa fiidkii ayuu soo gabagaboobay lamana hayo khasaaraha ama dhimasho leh ama dhaawac leh ee ka dhashay dagaalkaas sidoo kale faahfaahin buuxda lagama hayo laakiin dagaalino halka ka dhacay la isku fara saaray galabtay kooxda qawaariista ay isku dayeen in ay arqaladeeyaan gulufka ka socda oo ka soo bilowday hadda degmada Gurceel maadaama hogaamiyahii ee macawisleyda loo magacaabay in kala yiraahdo madaxweyne Cali Jayte Cismaan isla markaana abaabul oo ka bilaabay degmada Gurceel fishinkiisa ama aragtidiisa kooxda qawaariista ku aadan ay tahay sidii looga tirtiri lahaa horta gobolka Galgaduud iyo Mudug iyo sidoo kale Hiiraan iyo qaybaha ay Shabeellada dhexe ay uga sugan yihiin madaxweynaha ayaa la sheegay in uu diyaarinayo howlgalkaas si ballaaran in loogu qaado kooxda qawaariista ee al-shabaab kadib Soomaalidu waxay ku maamahdaa intii aad qaybinaysay annaga qalayay kooxda qawaariista dadka waxay ugu dhex jiraan si aan caadi ahayn xog ma moogana haddana marka loo fiirsho kooxaha bariga Afrika ka dagaalamo kooxda ugu sirdoonka badan waa qawaariista shabaab lagu magacaabo waxa la rabaa marka si looga foojignaado kooxdaas dagaalkii hadda galabta soo qaadeen waxay ugu socdeen inay dhagaxa galaan kadibna ay u sii gudbaan dhanka cadoonka dhulka loo yaqaano si ay u garab siiyaan kooxda qawaariista ay ku go'doonsan bariga maxaas ama degmada ceelbuur iyo ereyadeeda kooxda ku dhuumaalaysanaysa si ay gadaal culays ay uga keenaan ayay rabeen inay u gudbaan waxa lama horaana marka anagoo og dawladdu in ay ka go'an tahay la dagaalanka kooxda qawaariista isla markaana ay u soo xil saaratay in uu manage gareeyo dagaalka hadda socdo lagu geli doono madaxweyne Cali Jayte Cismaan ayaa la doonayaa in gadaalna laga fikiro ma ahan in hore la isaga socdo kooxdaas halka yani hoos waa in ciidan xoogan lagu horgudbaa inkastoo hadda ciidan xoogan ay joogaan hadda waxay keeneen baa lagu leeyahay ilaa iyo 3500 oo qawaariista ah horeyna waa u soo tabinay arrinkaas inkastoo page-kii hore ee Beledweyne City ama 5 Somali News waa lagu kala kacay ka laakiin dacwadiisa ayaa socota waxaan rajaynaynaa inuu dib u gacanteena u soo gali doono hase ahaatee inta arrinka laga gaarayo ama dib loo soo celinayo waxaan rajaynaynaa inaad halkan nagala socon doontaan isla markaana aad haddaad nagu cusub tahay soo follow garayso YouTube kana aad sidoo kale subscribe saarto si uu kuu soo gaaro update-ka halista ah ee kooxda qawaariista inta badan anagu kooxda qawaariista ayaan xooga saarnaa iyo dadka deegaanka iyo haday tahay qatar ku soo foolle ama ila sir doonan markaas helno marka soo dhawaada Soomaaliyeey hadda waxaan idin socodsiinayaa in kooxda qawaariista ay 3500 ilaa 3000 ciidan u dhaxeeya ay keeneen jiinka webiga galabtana dagaal xoogan ayagoo gudbaya lagu qaaday oo halkaas laga joojiyay kulay in gadaal loo riixay ayaa la sheegay oo dhanka webiga lagu celshay laakiin ereyada Jicibow iyo sidoo kale degmada Halgan ereyadaas waxay u baahan tahay in la duqeeyo marka ugu horeysa in la duqeeyo u baahan tahay sababtoo dhulku waa dhul howda nimankan meelaha kulay waxay fiirsadeen aan u maleynaa nimanka mujaahidiinta ka dagaalamaya Falastiin ayaa laga yaabaa inay wax ka barteen cashir ka barteen oo laga yaabaa hadda waxaan ka digayaa filla Soomaaliya hoosteeda inay ka soo baxaan aan ka digayaa nimankan mucjiso way waxay hal mar arkaan
وسيدي وأركان أنا كل رقاقيا مركا في الصومالية يدك كلا درس كأه وحنو قد جينا إن أرنكاس أي ماركتي حوج ساران إسكانا عيليان كواريسته ملكسته قريها وعلى جيها بعدت كدقية هاي إيريا في الصومالية إن أي ماركتي حرير لسه ما يعني ما متكمل هو ودقية سيون حرير أوراله سلام كار قريها هستي سلقة سوق قط في اللي أنا لقى سوق صباحه دقرتودو nimankan aad ay u badan tahay aad ayay dhagartoodu u badan tahay qodobkaas halkaasaan ku xirayaa hadda qatarta taagan waa dhulkan hoose ee webiga u dhaxeeya Buulaburte iyo Beledweyne hadday tahay Booco iyo hadday tahay ilaa Jicibow inta ka dhax dhulka ka dhax dhul weyn dhulkaas marka waxa soo gashay baa lagu leeyahay ilaa iyo 3,000 ilaa 3,500 oo khawaarij ah waxa la rabaa marka in laga foojignaado arrinkaas hortooda rag baa joogay raggaas waxay u baahan yihiin in la xoojiyo isla markaana aanay gudbin hadday gudbaan wareer hadday kuwaasi gudbaan culays ayay la imaanayaan si aanay u gudbin marka dawladda Soomaaliya waxaan ka rajaynaynaa in nimanka halkooda lagu duqay ilaa 3,500 oo khawaarij wax culus oo qaarkood isqarxinayaan wax naftooda nacay wax maskax bahayn wax baaba wax ciyaal garaabaysto dhan ay iska kaxaysteen nimanka marka diin baa lagu shubay waa leeyahay 7 gabdhood waay hadii alla ku roon gardheer inta la samaystay waxa loo maleeyaa sheekh wargarka waa la isku qaldaya garka ma ahan cibaado sidiisa qofku wuxuu aaminsan yahay ayaa cibaada garku waa sunno garka inaad deysato oo aad dhaafato sunno waay laakiin waxa cibaada waa waxa adiga ka dhex guuxaya kugu jira marka ciyaal garaab oo dhan iyo qashin iyo kooladhuuq iyo walaal xashiishka cabo intiiba intay ka haysteen ay yiraahdeen mujaahidiin baad tihiin waxaad helaysaan 7 gabdhood oo xural cayna waxaad helaysaan haddii alla ku roon yahay adigu waxba iska akhriyeen marka ani waxaan sheegayaa mar walba waxaan ku celcelinayaa waa dhagar badan yihiin nimanka qawaariista nin naftiisa nacay oo raba inuu asagii isku kaa qarxiyo si aad iskula dhimatiin asgarta waagaan ahayn waxaa nala soo baray sidii aan wax ku dili lahayn nafteenana ku badbaadsan lahayn guul midaasaa la yidhaahdaa ma ahan inaad naftaadii qarxisood isdishood adigiina wax sii salfato taasi guul ma ah marka waxaan ka baranay nimankan wax cusub waay weji cusub ayay Soomaaliya u keeneen ilaahay idankiisna waxaan ka rajaynaynaa gulufka uu hogaaminayo madaxweyne Cali Jayte Cismaan in uu ku guuleysto ilaahay inaha la garab galo annaguna waxaan ka rajaynaynaa inuuna noqon heesta hayla dhageysa marka inkareer u dhaanshe dadku dhowrayeene dhexda awku ka gaalumay inkareer u dhaanshe dadku dhowrayeene dhexda awku ka gaalumay gelin iskoolka ilaahay agtiisa waxaan ka rajaynaynaa inuunan gulufkaasi una noqon mid khasaara eeriyada maanta lagu dagaalamay haddii aan idin sheego kolley galcada meel lagu magacaabaa meelne meesha kalena magaceedu waa ilaa 2 meelood ayaa galabta la isku farsaaray kooxdaas oo rabeen inay ka gudbaan marka dhagartooda nimankan way badan tahay madaxweyne Cali Jayte Cismaan waxaan ka rajaynaynaa in uu gulufkaasne ilaahayna la garab galay uu ku guuleysto sidoo kale hawshii loo dirsaday dadku ay u igmadeen reer Hiiraanne in uu shaqadeeda galo taas laftirkeeda insha Allah barnaamij gooni aan ka diyaari doonaa waxaan rajaynaynaa dadka Soomaaliyeed inay kula shaqeeyaan bal arrimaha uu ku dhex jiro mudane madaxweyne Cali Jayte Cismaan oo aan ka rajaynayno inuu guulo waaweyn qaranka Soomaaliyeed iyo dadka shacabkaaba u soo hooyo si markaas looga guuleysto kooxda qawaaristaane qidadaha oo asagu markaa adeegsan jiray
waxaan rajaynaynaa in la garab istaago oo lagu garab istaago si looga guuleysto kooxdan khawaarijta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.